Assalaamu calaykum kusoo dhawaada channelka Somali Home. Fadlan haddii markii tahay kugu horeysay channelkan waxaan ka codsanayaa subscribe inaa ii saarto sifa mar walba oo la socoto fiidiyoyaashayda. Maalimahan dambe ayaa qabsatay baraha bulshada safarkii bixitaankii Darisla Cabdi. Sida dhammaantiinna ogtihiin Darisla Cabdi wuu ka baxay dalka Kenya. Waxaana safarka si aad u qurux badan u dhaweysay Samiixa Khaliil oo saaid looga shakisan yahay labadooda inuu ka dhexeeyo xiriir dhab ah. Xiriir jacayl oo dhab ah. Dadka ka shakisan labadan qof in uu jacayl ka dhexeeyo. Samiixa Khaliil maan ugu horeyso qof oo uga imaaday magaalo kale mise waddan kaleeto oo uguma horeyso Darisla Cabdi. Waan aragnay dad badan oo u imaadeen oo u safreen laakiin lama arag qof ay dhaweysay xitaa intii Kenya ooga baxday ay Dubai geysay ay waqti la qaadatay lamaana arag qof ay saan isku dhow yihiin rag iyo dumar ah. Taasoo keentay dad badan in ay ka shakiyaan labadan in ay asxaab, saaxiib, walaalnimo jacayl ayn ahayn. Waxa ka dhexeeyo inuusan ahayn jacayl walaaltinimo ah ay ka tahay real. Xitaa waxaa ku jirta magaalada Nairobi in ay isguursan rabaan mar dhow. Sidaan ii sheegay mararka badan dadka caanka ah la yaqaana waliba Soomaalideena dadka caanka ah way adag tahay in ay soo bandhigaan noloshooda dhabta ah. Hadda xitaa ma garanayno labadan qof in ay ismehersadeen. Ma garanayno labadan qof in hataa mar hore ismehersadeen. Qof walba wuxuu yaqaanaa dad oo muuqaalo soo duubo, dad oo caadi u shaqaysto. Balse waxyaalo badan ay sameeyaan waxay ku tusinaysaa dadkan in uu waxaan ka badan yahay jacayl walaaltinimo ah. Hadda waa arkaysay qofka markuu baxayo oo asxaabtihiin waxyaalo badan ma isgelinaysid. Uma qaadanaysid xitaa inaad ka duusho magaalada joogto oo magaalo kale aado shaqooyinkaada dhan u istaajiso. Inta badan dadka asxaabta ah way ismacasalaameeyaan si qurux badan laakiin iskuma way adag tahay inay isku safraan. Laga yaabaa in 1, 2, 3 ay jiraan dad isku safraan. Hadda waa aragteen waxay isku raaceen Dubai sifay waqti iskula qaataan. Sifay waqti ugu dambeysay sababta adduun waa waxaan lama ogo in la isku soo laaban doono. Hadda waxaa arkaysay Samiixa Khaliil iyo Darisla Cabdi oo ku baashaalayaan Dubai. Dubai ayay waqti ku qaadanayaan sifay u dhaweyso sifay haddana waqti qurux badan oo la qaadato. Dadka ka shakisan in labadan qof in wax ka dhexeyn indhaha kala fur indhaha ayaa ka xiran tahay. Dadka jacayl dadka jacayl inta badan ma qarin karaan waxa dhexdooda yaala. Waxa dhexdooda yaala inta badan ma kala qarin karaan. Waxa kaleeto waa record labadan qof labadan shaqsi 2 different personality kala ah. Waxaa waaye hadda waan ognahay Samiixa Khaliil qof bulshada waa dadka soo jiidato. Darisla Cabdina waxaa waaye dadka kaliya gooniga ah oo kaliya socodka ah. Labadan qof waxaa la yaabay waxyaalaha isku soo dhaweeyay oo isjeclaysiiyay maxaa waaye goorma xiriirkan hagaajismeen. Labadan qof goormay saaid isku soo dhawaadeen. Waa su'aal dad badan ay isweydiiyeen. Aan wax ka baro. Waan ogsoonahay Samiixa Khaliil hooyadeed sida ogtihiin intiina badan hooyadeed way ka dhimatay oo hooyadeed way ka xanuunsanayd maalmo badan. Inta u badanne qof walba saaxiib la yeelato gadaal ayuu u jeedinayay. Wuxuu tusinayay yacni qof walba inuunan ahayn qof oo walaal ah. Waxay ka heshay Darisla Cabdi hooyo markay ka dhimatay iyo hooyo markay ka xanuunsanayd walaaltinimo. Inta badan dumarka waxay sameeyaan waxaa waaye hadday ka arkaan in aad markii noloshooda ugu adag tahay markii noloshooda dhibaato marsan tahay ay nolol cariiri marayaan hadday ka helaan qofkaas walaaltinimo 100% qofkaas jacayl romantic-nimo ah ayay u qaadaan. Hadda waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso labadan qof intee iska soo helaadeen intaysan ay noqonin sheeko qabiil wax ogaataa gabdhaha
rag badan ayaa noloshooda ku jira. Maxaa Dirshe Cabdi uga dooratay Samiixa Khaliil boqolaalanka rag? Kow waxaa waaye wuxuu siiyey jacayl walaaltinimo ah. Waxay ka heshay garab. Waxay ka heshay mar walba ay murugaysan tahay wuu ka farxinayay. Waxay rabta ayuu siinayay. Wuu dhaqaaleynayay. Asagoo shaqooyin badan u yaalo ayuu intuu soo xiro iska soo tagay. Intay murugaysneed wuxuu leeyahay ka farxi. Intay murugaysneed ka farxi. Waqtiyaal badan laga qaado. Dadka dhahayaan Dirshe Cabdi wuxuu u soo tagay Astriga sutu Kenya u imaado waxay ahayd 1,000,000. Wax walba ma aha milyan. Wax walba ma aha views. Mararka qaar qofka noloshiisa dad badan ayaa ku xiran. For example, Samiixa Khaliil waa ogsoon tahay qof walba ay saaxiib la yeelatay wajiga ayuu u soo gadiyay. Qof walba ay saaxiib la noqotay dhawarka ayuu u jeediyay. Balse Dirshe Cabdi mar walba wuxuu isku dayay inuu wax walba u joojiyo uu ayada u imaado uu waqti la qaato oo murugada hooyo iyo dadka badan oo ku soo duuleen in uu ka tirtiro. Waa waxyaalaha la yaabka. Waa ka fahmi kartaa markii hore waxay ahayd saaxiibtinimo iyo walaaltinimo. Aan qofkana u joogo, qofkana u tagnaado intuu murugoonayo. Sababtu way ogtahay dadka markay caanka yihiin si walbo boqolaalan qof u followers u leeyihiin, si walba ay views u helaan, noloshooda dhabta ah inta badan waxay ku jiraan kalinimo. Kaamirada soo istaagayaan, dadkaas ay la hadlayaan ayaa wax weyn u ah. Ayaa wax weyn u tara. Hal qof ayay helaan, 2 qof, 1 qof, inta badan 3 oo real ah oo la qaybsadaan murugadooda iyo farxadda. Maasha Allah, waxay horta heshay nimanka badan uga fiican. Maanta inta u badan waxay u egyihiin kuwan caanka ah qof views ku raadsanaya qofka kaleeto. For example, qof waxaa arkaysaa maalimo 3 beri qofka la soconayo muuqaalo sir ah ka duwanayo sida Xafsa Queen iyo wiilka hore ay kala tageen. Maraba inaa magaciisa meeshan ka sheego. Wax yar markuu la sameeyay wakaas muuqaalo cod sir ah waxyaalo badan ayuu ka soo duway. Hadda Dirshe Cabdi Samiixa Khaliil intaas ayay isla hadlayeen, intaas ayay isla socdeen. Mana arkaysid asagoo muuqaaladeeda mise codka iyo waxyaalaha ay ku sheekaystaan public ka soo dhigayo. Hadda Samiixa Khaliil Dirshe Cabdi maxay ku dooratay? Maxay dadka dhan uga soo saaratay? First waan ii sheegay waa saaxiibtinimo iyo walaaltinimo. Weli lama arag Samiixa Khaliil oo qof u safrayso intii Kenya uga tagto sida quruxda badan u dhaweynayso. Ma jacayl walaaltinimo ah mise wax kale ayaa jira?